الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. waa mid ka mid ah ardayda wax ka barta madrasada Al Rayyan Al Islaamiya ee magaalada Mandera. Madrasadan oo la aasaasay sanadka 2010 ayaa soo martay marxalado kala duwan. Madrasadu ay ka qalin jabiyeen dhowr arday ayaa haatan waxa wax ka dhigta boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. hotelkan City gidaasheedii ay ku taala madrasada haatan oo ay dhisan tahay 15 sano waxa ka jira baahiyo dhanka dhismaha sida fasalada iyo deerka. gudiga madrasada maamulka macallimiinta iyo ardayda wada jira ayaa ka codsaday muslimiinta ku nool county-ga Mandera, Kenya, Soomaaliya iyo daafaha dunida inteeda kale inay ka qayb qaataan dhismaha madrasada ay u baahan tahay. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو محمد آدم محمد مديرك مدرسة الريان الإسلامية. waxaan rabnaa in aan idiin soo gudbinno wax yar oo ku saabsan macluumaadka madrasada iyo waxaan u baahannahay aan idiin soo gudbinaynaa insha Allahu tacaala. madrasadan horta waxaa la asaasay 2010 yaa la asaasay. madrasadana waxay ku taallaa Mandera yay ku taallaa magaalada Mandera ay ku taallaa khaasatan buulada xaafadda Tawakal oo hotelkan City gidaasheedii ay ku taallaa madrasada qabriga meel u dhow yay ku taallaa madrasada. waxaa dhigata madrasada ardada gaarayso gabdhahay weelilba 300 gaarayaan yaa dhiganayso. marka waxaan u baahannahay in dal ii dibidba walaalaha muslimiinta in nagu caawiyaan inaan madrasada aan horumarino aan wadno. madrasada waxay u baahan tahay saddex fasal iyo wax ka badan aan u baahannahay iyo hool oo caruurta ay fadhiistaan iyo xaydaanka madrasada yaan u baahannahay. walaalaha sharafta leh meel ay joogaanba waa salaameynaa salaanta islaamka ah yaan ku salaameynaa. marka sidii walaalkeen uu sheegay meeshaan joogno waa madrasada Rayyan la yiraahdo Mandera East ay ku taala woodka Neboy ay ku taala. madrasadan kolley waa madrasa qadiimi ah mar hore la asaasay. ilmo badan baa ku aflaxay wax lagu baranayo waa sharciga culumta sharciga ayaa lagu baranayay quraanka iyo tafsiirkiisa iyo xadiista iyo tawxiidka iyo fiqiga culumta sharciga diinta ay lagu baranayay. tiradaas dhinayso 300 waa ilmo isku dhex jira waaye. ilmaha ogoonleey ah ogoomaa ku jira ilmo ducafada dafiiska aan iska bixin karin baa ku jira. marka kalaasaan aad arkaysaan dad walaalaha muxsiniin ah ayaa noo dhisay. ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolahoodii allah barakeeyo maalkooda allah barakeeyo. dad intaas muddo ay soo socotay kaalmaha dadka walaalaha muslimiinta ah oo ay ugu horeeyaan dadka wasaaziga ah waalidiinta ilmaha dhalay ilmahooda wax u baranayaan ay ugu horeeyaan iyo dad kale muxsiniin ah gudaha maartay ku nool ayaa kalaasaan aad arkaysaan oo kaalmeeyay. marka wali baahida aad bay u jirtaa. ilmaha arkaysa matalan kala mabaatiga dhexdiisa wax ku akhrisanayo cariiriga ah meel ay ku fariistaan hata kuraasti iyo maartay wax ku akhrisaan naftooda way liidataa malaha. waxaa kaloo matalan xiitaankii iyo maartay dhulkana dhul weyn oo madrasada dhulka ay leedahay waa milki uu leeyahay. waxa way waxay u dhigantaa dhul aad u ballaaran waaye ilaa 4 hektar oo kale aad dhul gaari waaye. waa dhul qofkii maanta haddii muxsin oo wax u qabanayo dukumentkeedii iyo waraaqaheed xagga dawladda kulli shuruudaha dhulka laga rabo xagga dawladda kulli kaamil ee waaye. marka insha Allah dadka muslimiinta ayaa la soo taway la soo xasuustay baahida halkan ka jirta darteedii liana goobaha tacliinta diinta wax lagu baranayay waxa weeye dawlad fangareynaysa malaha. dadka muslimiinta walaalaha khayrka jecel ba dawlad u ah aabba u ah muxsiniin u ah
marka qof kasta oo doonayo sadaqa jaariye ah waalidkiis inuu ka sadaqeeyo rabo iyo khayr inuu ka qasad maartay sadaqa jaariye ah rabo insha Allah taala halkaana loogu baahan yahay dadka muslimiinta videogan arkaayo ma dhageysanayo dhammaan waxaan ugu baaqaynaa meel ay joogaanba in madrasada ay soo fiiriyaan gacan ka soo geystaan ayaan ugu baaqaynaa laana wax la barto oo sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa lagu barto meel la kaalmeeyo oo la garab qabto hanta lagu bixiyo meel ugu munaasabsan malaha bacdu salaam walaalayaal video kan aad u jeediin kolley waxaan u soo duubnay baahi ay jirto oo madrasa ka jirta sababteedaan u soo duubaynaa waxaan idinka codsanaynaa meel alla meesha joogtaanba dadka allu khayrka ah oo khayrka macnaha adduunyo aakhiraba doonaayo madrasadan baahi badan baa ka jirta sida derbi in loo wareejiyo galaas ay u baahan tahay dhibaatadeeda wax kooban ma aha iyo musqulo waxaas ay u baahan tahay waxaan idinka codsanaynaa ilaahay wax laga codsadee dadka muxsiniinta ee muslimiinta ee waxaan u baahanahay inay gana garab istaagaan madrasadan dhibaatadeeda culeyskeeda inayna la qaybsataan oo adduunyo aakhiraba ninkana idin soo doocayna ayaan idinka codsanaynaa meeluna tasurugna ku dawahayna madrasa rayaan oo ka taala buula tawakkal yaa ku dawahayna sidii walaaloogan rabbi sheegeen madrasada dhuliya iskula taala markuu wali codsadaana intii hata hore la sheegay musqulo codsadaana fasalo codsadaana madrasadana intii madrasadanka targalay kulli qabta ibtidaa'i galaasadii hoos primary qabta secondary qabta high level qabta marka insha Allah taala wali walaaloogan muslimiinta ku codsadaana si degdeg ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wali habsadeen intii Ilaahay barakay oo marat meelan ka fayl wala kabiir sadaqatul jaari intii unugo ka akhrisadow abaalkaas adakeen socda waalidiinta ku sadaqeeyo korta adin nafta ku sadaqeeyo korta marka insha Allah taala wali sin ku codsadaana si walaaloogan rabbi sheegeen derbin arga haytan rafaaday wali fadaana intii wareeji ya fadaana fasal an baahna masqul an baahna awlaadad meeliyo surnin iru hoosila hoolko helo lahayni awlaadan hoosanin fadheedo lahaayeen marka intaas codsadaana haddaba cidii doonaysa inay ka qayb qaataan dhismaha madrasada Al Rayyan Al Islaamiya waxay lacaga u soo marin karaan oo ku soo diri karaan paybill number 625 account number nawa 12351981 bangigana waa National Bank amaba waxaad kala xiriiri kartaa wixii wicitaana maamulka iyo gudiga madrasada eber 7-25-15-63-25 amaba eber 7-29-79-97-94 ama waxaad booqani kartaa xarunta madrasada oo ku taala xaafada Buula Tawakkal agagaarka hotelka Density